waxaa muddo dheer aragtida siyaasadeed ee ku dhisan kala qaybi oo xukun fogeynaysay sokeeyihii haldoorkoodu intii badnayd ku laatay sidii dalkan iyo dadku u xoroobi lahaa inkastoo ay muujiyeen inay ogol yihiin qarannimada Soomaaliland iyo la shaqaynta hadba hoggaanka jooga waxaa loo sawiray inay yihiin cadow maantana waxay ka aradan yihiin manfac iyo masaba waxay xaq iyo xuquuqba u lahaayeen waxaa kala shaki iyo subaale gelin la kala dhaxdhigay iyaga iyo walaalahood taasoo wiiqday muuqaalkii wada jirka ee qarankeena nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummadiisa kula dardaarmay inay karaameeyaan kuwa beelahooda iyo bulshada dhexdooda karaamada ku leh waxa wax la liqi kari waayay in madaxweynuhu qiimeyn waayay odayaashii beelweyntii siday nabadeyntii arrinta caare fadhigana waxa ugub ku ahaa isla markaana bahdilaad u noqday in madaxweynuhu odayaasha nabadii la qaadan waayay isla markaana cajalad ka duubay soona baahiyay